بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتضوي لاتن بشمارج لبدا كن يلبي لاتن كا وحن شونا مقالة هرقيسة ترهاد واي تاريخ وحيد شنية لاتن معنيش معاكو باقنيد لبدا كن يلبي لاتن كا waxaa ku geeriyooday magaalada Xaydaarabaad ee dalka India naxariistii janno Ilaahay ka waraabiye marxuum Cabdulqaadir Xaashi Cilmi oo ay dadka intiisa badan u taqaano mulkiilaha howlka Mansoor naxariistii janno Ilaahay ka waraabiyo eheladiisii qaraabadiisii caruurtiisii xaaskii dhammaantoodna Ilaahay samriye iimaan ka siiyo shacbiga Somaliland gaar ahaan reer Hargeysa iyagana Ilaahay samriye iimaan ka siiyo siyaasaynu ugu ducaynaynaa Cabdulqaadir Xaashi Cilmi oo shakhsiya aad uga muuqata oo ahaa shakhsiyad aad uga muuqata dalka iyo dadkaba waxaan jeclahay anigu aan ku saartagayn inuu xoogaa ka taabto tagtadiisii gaar ahaan tagtadiisii dhaweyd kolleyba waa laga hadlay oo keligii kuma koobni laakiin tii dad badan baa ka hadlay Axmed Siciid Cige ayaan xasuustaa oo taariikh nololeedkiisii kooban hore u soo tabiyey waxaan jeclahay Cabdulqaadir iyo 19 ama 1900 iyo 1992 intii ka dambeysay inaan xoogaa dul cararo oo laga yaabo in badan oo ka mid inaanay aragtiya ka qabin ama aanay sidaaba u aqoonin Cabdulqaadir Xaashi Cilmi oo u yaqaaneen nin mulkiilaha oo leh hudheel baayac mushtari oo Mansoor la yiraahdo oo ku yaala galbeedka magaalada Hargeysa Cabdulqaadir Xaashi Cilmi oo ka soo qayb qaatay taakuleyntii iyo tabantaabadii halgankii huweysnayd oo xoreynta qaran ee asal horteedka ahayd ayaa markii dalka la xoreeyay 1991 wuxuu ka mid ahaa dadkii qurbaha ka soo dhaqaaqay sahamada dhowrka ku yimid sidii ay wax uga qaban lahaayeen ama ay qayb uga qaadan lahaayeen dib u dhiskii dib u heshiisiintii geeddi-socodkii dimuqraadiyadeed waxbarashadii caafimaadkii biyihii iyo soo celintii noloshii guud ee dadka ay ku burburtay dagaalka hubeysnaa ee dib u xoreynta qaran sabab oo ahaa nidaamkii bahalka ahaa ee dalkan ka talin jiray Cabdulqaadir Xaashi Cilmi wuxuu wariyay madaxiisa ku soo dhacay wuxuu ahaa inuu halkan hudheelka Mansoor ku yaalo inuu ka baablo hudheel Cabdulqaadir nin hal abuur leh ayuu ahaa nin handareersan oo hiidrusan ayuu ahaa magacuun baa hudheel ku baxay ujeedo ka fog ayuu ka lahaa barta ganacsiga ee ku magac baxday hudheelka waxay ka bilaabantay in deyrkii la soo wareejiyo hilaad ku sinayd 1992 dabeedna hudheelka maalintii la naqshaday lama wada taagnay urin iyo hal abuur hor leh iyo falanqayn iyo naqdi wixii hore u jiray si inta dambe loo hagaajiyo ayuu ku socdo maalinba meeris baa la tolay magacii baa loo doono waayaha hal abuurku siyaabo badan buu uga hadli jiray wixii taagnaayo waxaa la abaari jiray oo hadalhayntu u badnayd aqoonta maskaxda waxayna soo martay heestii Cismaan Aadan ahayd maskaxda laga abaaroobay waxayna soo martay gudgudey 1990
maansadii hadraawi ahal muceedyadeedii ka mid ahaayeen inta maanku gaajaysan yahay guuli waa weli xasan xaaji cabdilaahi ganay ayaa loo dooray inuu magaca soo sahmiyo dabkuu wuxdigiyey dabeedna wuxuu bixiyey mansoor hotel xasan wuxuu ka ambabaxayey cabdilqaadir ka ambabaxayey in maanta loo baahan yahay in maanka la sooro in maanta loo baahan yahay dadku markay hudhaal maqlaan hurdo iyo cunto iyo ayaa kusoo dhacaysa laakiin tii abbaartii xaaji cabdilqaadir ba ahayd in loo baahan yahay in maanka la sooro oo see lagu soorayaa dabeedna intaasoo madalood ayaa laga dhex furay hudhaalka oo hudhaalku marba meel buu taagnaaye mar buu ahaa intan hudhaalka ah ee baabuurta liyer lahor dhigta ee receptionka leh ee fadhiga leh waxaan xasuustaa 2022 abril oo xaflad habeenimo lagu qabtay hudhaalka mansoor markii inoogu dambeysay aanu aragno ayay ahayd naxariistii janno ilaahay ka waraabiyey maxamed maxamed jibraan cigaal oo halkaa ku ballaysamay ama ka furay barnaamijkan FM-ta ama mawjadan FM-ta ee Hargeysa ee BBC-da laba wiil kadib ayuu cigaal dhimanayaa madashu waxay ahayd hudhaalka mansoor waxaa la fadhiyey halkan loobiga ah ee receptionka hortiisa iyo halkan lagu cunteeyey intaas ayaa xafladda lagu qabto mansoorkana arkaysaanba ee maanta ilaa burco kala jiidan ee sahamku ku maqan yahay bari intaasoo ahaa waxaan xasuustaa 2003 6 February oonu xusaynay soddon guuradii naxariistii janno ilaahay ka waraabiyey cabdilaahi sultaan timcadde soddon guuradii ka soo wareegtay xafladda waxaan ku qabanay hudhaalka mansoor halkaa receptionka iyo hortiisa ay podiumka laga hadlaya anaa akhriyayo halkaasaan taagnaa kuraasidan fadhiga ah ee loobiga taalla intaas maaba lagu fadhiyay waxaa ku fadhiyey dhowr qof oo akaademiga waxa uu heliyey cabdilqaadir iyo cabdikariim jiin loo jiro mulaxinaha ayaa uu heliyey mansoorkan intaasoo kunoo qof qaadaa intaasuu ahaa marbuu intaa ahaa maantana waa idinka arkaya dabeedna cabdilqaadir wuxuu u howladay inaanu meel laga cunteeyo meel la seexdo noqon ee uu noqdo madal wax lagu barto madal lagu heshiiyo madal lagu wada hadlo madal bugaagta lagu soo bandhigo madal sheekooyinka lagu soo bandhigo madal lagu haasaabo madal lagu dhiso dimuqraadiyadda axsaabta madal geedi socodka dimuqraadiyadeed lagu taakulayo madal ay ku kulmaan ururada bulshadu qaybaha kala duwan ay leeyihiin ma guurtiba ma haweenba ma dhalinyara ma da' soo kaxaysa ma da' dhaxaa shakhsiyadii la yaabka ahayd cabdilqaadir waxaa ka mid ahaa inuu waxaasoo dad afyaqaanayo caruurtaa yaryar ee imanaysa kuwa yaryar keejiyada laga soo bilaabo ilaa da'dii cabdi waraabiyo inuu intaa la hasaawi jiray oo uu la wada macaamili jiray oo ay wax wada wadaagi jireen waa tan shakhsiyadda la yaabka leh cabdilqaadir inuu intaasoo dhan isku hayay intaasoo kale fikira oo kale mabaadiya oo kala aragtiya inuu isku hayay oo uu la wada dhaqmi jiray oo uu la wada macaamili jiray oo la gorgortami jiray wax ka dayn jiray taakulayn jiray cabdilqaadir wuxuu qayb ka qaatay la yaab leh geedi socodkii dimuqraadiyadeed iyo dhismihii axsaabta ilaa heer uu ka gaadhay inuu wax ku darsado oo taakuleeyo ololayaashii doorashooyinka ee axsaabta oo aanay u kala dhoweyn oo aanay u kala sokayn oo aanu u kala sadburin jirin oo aanu u kala badin jirin laakiin tii uu arkayey xisbi
cabdulqaadir hadiyo goraale waxaad arki jirtay marka aad hudheelka joogto kolley dadkii inta badan iman jiray baan ahaa isagoo ku gaafureegayo marna shaqadiisa kormeeraya marna dadka ra'yi iyo talo la wadaagaya cabdulqaadir wuxuu ahaa safiir buu ahaa dalka safiir buu ahaayoo la dhaqanka iyo la sheekaysiga dadka ajnabiga ama ha ahaadaan kuwa safaaradaha ee xafiisyada kula meesha ama ha ahaadaan ergooyinka beesha yurub maraykan ama adduunyada kale carbeed ama islaamba ka yimaada la wadaaga tala iyo ra'yi ku siman somaliland iyo sidii ay hore qaadi lahayd waxaynu garanaynaa aynu ka wada dheregsannahay doorkii uu ka qaatay cabdulqaadir tabantaabada iyo taakulaynta waxbarashada inta jaamacadood ee ka qalin jebisay ee xaflada ku qabsatay ee lagu martigeliyey ee lagu sooray cabdulqaadir kumuu koobnayn hargeysa markii dambe waa kii berbere u gudbay waa kii burco u gudbay wuxuu halkan ka sameeyey beer khudrada oo lagu taakuleeyo hudhaalka wuxuu berbere ka sameeyey hudhaalun ma ahayne meel yaroo deked yaroo kale ahoo badda sidaa u gasha oo laashashii ay kusoo xidhaan oo ay dadku u dalxiis tagaan badda laga yaabaa inuu qorshayaal kalena kala ahaa hudheelka uu ka sameeyey burco cabdulqaadirka aynu ka hadlaynaa waa cabdulqaadirkanoo maaha qof aynu maalin iyo barnaamij aynu ku dhammayn karnee waa tusaale nool oo aynu ku dayan karno cabdulqaadir waxaa laga sheegayey maruu waraysi bixinayay uu dad ajnabiga uu ka wareysanayay noloshiisa iyo hudhaalka iyo siduu soo barbaariya wuxuu ka sheekeeyey inaanu weligii hudhaalka amaah u qaadanin laakiin tii uu ku dhisay wixii uu ka dheefay hudhaalka muu ahayn mansoor dhisme inta mar saa loo deyriyay mar faraha laga qaaday muahayne dhisma ku socday caqli baa geliyey fikir baa geliyey cabdulqaadir waxaynu ku xusuusanaynaa naxariistii badnayd waxaynu ku xasuusanaynaa odaynimadii waxaynu ku xasuusanaynaa dal jacaylkii iyo dad jacaylkii cabdulqaadir waxaynu ku xasuusanaynaa hargeysa jacaylkii iyo sidii uu isugu waday dadka reer hargeysa ee uu meel walba u joogay cabdulqaadir dowladdu la timaadaba saaxiib buu lahaa xisbi walba saaxiib buu lahaa dhallinyaradoo dhan saaxiib buu lahaa dumarka iyo qeybaha badan ee kala duwan ee bulshada dhammaantood saaxiib buu lahaa wuu la sheekeysan jiray wuu ku dhex jiray cabdulqaadir mu ahayn nin ganacsadaho intuu khasnad hordhigta hudhaalka dabeedna wixii soo dhaca ku gurto laakiin intii wuxuu ahaa qof si nool ugu dhex jira waxa hudheelkan ka socda iyo hawsha wuxuuna hudhaal mu ahayne institution ka ballaaran hudhaal ayuu ahaa barnaamijyada qaarkood habeenada bugaagta lasoo bandhigayo ka mid baan ahaa dadkii bugaagta badan soo bandhigay marka doodu ay socoto axsaabtu marka guddiyadu ay soo bandhigayaan go-aamadooda cabdulqaadir wuu la falgeli jiray oo wuu joogi jiray oo wuu fadhigi jiray hudhaal ahaan waxyaabihii ka muuqday waxaa ka mid ahaa in goobo lagu ciyaaro uu lahaa waxaa ka mid ahaa in ay jireen qeyb bulshada ka mid ah oo la odhan jiray ama la yidhaahdaba oon ka tirsanaan jiray bilowgii socod wadaagta mansoor dad oday iyo dhallinyaraba leh oo ku wareega hudhaalka isaguna u fududeeyo hadba hayntiisu siday u tahay mar aanu budulka ku lugayna iyo mar marmarna loo dhigay iyo mar hadh loo sameeyaba cabdulqaadir kaalinta uu kaga jiray nolosha bulshada taasay ahayd qeybtaasay ahayd qofkaa nool ee fikiraya ee hal abuurka iyo culunta leh ayuu ahaa ee dal iyo dadba u maqnaa naxariistii janno ilaahay ka waraabiyo innagana dhammaanteen si maryo iimaan haynaga siiyo waxayla tahay
inuu cabdilqaadir xaashi cilmi fursad u noqon doono daayarta soo kacaysa si ay wax uga qoraan. waxaan xasuustaa isagoo u yeedhay koox isbaanisha, laga yaabaa inay ganacsato kalena wadaageen xogogaalumeyhii, laakiin tii dadkii ka qeyb galay un baan ahaa barnaamijyadaas. kooxda isbaanishka ah oo duubaysay filim ka sheekeynaya somalilan sidii ay u dhalatay, u curatay, siday u barbaartay, siday u kortay. waaban ku arkay youtube kan yaroo daqiiqada ama la daqiiqa xayeysiisa, laakiin tii kolleyba waxyaabaha la baadi dooni doono ayuu ku jiraa. ninkaa ballaaran buu ahaa cabdilqaadir ee sidaa nolosha ugu jiray, naxariista badnaa, xaragada badnaa. sidaas ayaynu ku sagootaynaa. aniga abtina wuu yahaa, reerkan isagun iskamaanaan aqoonay, in badan oo kale ayaanu iska naqaanay oo barashadeedu baraxaash cilmi ayay kusoo bilaabmaysay. dabeedna maxamed iyo xasan iyo in badan baan isbaranay, wax badan oo kalena waa dhexmareen. ilaahay naxariista jannaa ka waraabiyo, innagana samir iimaan naga siiyo, isagana aynu ka dhigano ku dayasho. daayartuna ha ka dhigato cid ay hiigsato oo ay wax ka qorto, oo ay fikirkaa ballaaran ee uu ku noolaa ee uu ku shaqayn jiray u gudbsa dadka. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.